waxaana wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno stuudiyadeena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Daawadayaal sida aan la socono waddanka Djibouti waxa haatan ay u diyaar garoobi doonaan doorashooyinkii madaxtinimada iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu sheegay in markii shanaad uu soo sharaxi doono. mar uu dhawaan wareysi bixiyay ayaa waxa la weydiiyay su'aal ku saabsanayd duuliye Fuad Yusuf Ali oo isagu muddo ku xidhnaa waddanka Djibouti sababaha uu u xidhan yahay iyo waxa dawladda Djibouti ay damacsan tahay. madaxweynuhu waxa uu ku jawaabay qof ama nin dambiile ah ama dad laayay ama hanti umadeed burburiyay miyaad doonaysaan inaan maxkamad soo taagin. waxaan daba khadka Skype-ka kula xiriiray Cumar Yusuf Ali oo jooga magaalada Ottawa waddanka Canada. aan marka hore ku soo dhawow Somali American TV aan Cumar. السلام عليكم وادنا سنتين نيكي يتيمكي Somali American TV وادنا سنتين انت مانتي سو عجمتين دوريشي لا يلتي waayahay hadalkii madaxweynaha ka bilaabi doonaa sida aad hordhacay ku maqlaysay bal jawaabtii saxda ahayd ee madaxweynuhu bixiyay markii la weydiiyay walaalka Fuad muxuu ku jawaabay kolkii la weydiiyay wuxuu ku jawaabay laga yiri ninka duuliyaha ku xiran xagaas maxay deynay uu ku xiran yahay kolka wuxuu yiri su'aal buu dib ugu celiyay uu yiri ninkii wariyaha uu ka yiri nin hanti dawladeed burburiyay nin dambiile ah nin dad laayay maxay haydeynay ma miyaad sii deyn lahaydon xidhina baadna leedihiin ayuu yiri takalena wuxuu yiri qofku maalinta la xidho unbuu mucaarid noqdaa oo waxaa soo deed wada beena oo ay ku bunbuuninayaan ninka walaalkaya sidaa buu ugu jawaabay walaalka dad miyuu laayay isagu may hantidu burburiyay maxay tahay dee hanti uu burburiyey ma jirtay iyagu waxay samaysanayaan ay leeyihiin diyaarad ninka waa duuliye weyn ninka walaalkay kolkaa diyaaradu ku shaqeeyaa wey kolkaa diyaarad buu burburiyey buu leeyahay uu jajabiyey buu leeyahay wuxuu doonayay ta kale inuu u baxsado bay yidhaahdeen waddanka Eritrea oo ay u haystaan waddan cadowga Djibouti kolkaa waddankaa buu tagay sidaa bay leeyihiin laakiin run maaha Cumar walaalka Fuad marka isagu ma mucaarad buu markiisa hore ninka yare walaalkaya koob 80kii buu dhashay askari buu noqday wuxuu ku shaqeynayay askarinimo ilaa intuu qaan gaaray waxbuu soo bartay wuxuu wadaa helicopterka wuxuu wadaa diyaaradda caadigu wadaa wax mucaarid iyo siyaasad la yiraahdo maba garanayma ninka walaalkaya waxaan iminka dhacay waxa weeyaan kolkay jicideen ay gunaadeen ay gumaysanayeen 10kii sunadeedu askariga ahaa mishaaradii ka gooyeen ay naftii ugu yimaadeen naftiisu la baxsaday Ethiopia tagay Ethiopia kolkuu tagay Ethiopia ka doonteen diyaarad bay ka haysteen ay ka soo qaateen way xidheen oo waxay ku masqushay ku dhaxideen masuul ay ku dhaxideen ay ku haysteen inta uu soo kolka ninkaasi nin siyaasiya oo loo qoonay kolkii hore ما هذا هذا حالكيس واسده noloshiisu waa sida hadda wallahi noloshiisi war kama hayno dhibaatana haysato ma arki karno imka 3 bilood horta umaanu gelin bay ahay anagoo 3 bilood arkin oo naloo diiday inaan aragno ayay dumarkii nala dhashay hooyooyinkeygii iyo gabadhii uu qabayay ay maxkamadda tageen ay dagaaltameen kolkii baa laga yiri waad arki kartiin maalin baa loo soo sii daayay way arkeen maalintii kolkaa wallahi warkii la iga soo sheegay de war qurux badan ma ahayn nin yaroo god lagu haysto oo waxbana aan ogeyn caafimaadkiisu cudurro wuxuu iska leeyahay gaara caafimaadkiisu fiicnayn cuntadu cunayo iyo lase jicidka uu ku jirana ay u sii dhibaato u sii tahay weyn ay u sii darayso maxay ahayd inay xaaladiisa ay aad ugu sii dhimayso kolkaa waa ma fiicno wallahi war ahaan caafimaad maxkamad ma la hor keenay hadda si wali habeen iyo dharaar waa la qaadaa oo waa la geeyaa kolka waxa weeye waxay yiraahdeen ninkan waa nin askariya kolka waxay qoreen deserter oo nin firxade oo askarti ka firxade bay yiraahdeen moogtahay kolka waxa weeyaan martial court wanama militariga xeerkii militariga laga maro moogta ma haystaan oo ma jirto waxaas kolka waa dawlad maaha Djibouti
si dowladeed u shaqayso maaha kolka ma haystaan marshal court oo maxkamaddii militariga ma jiro way qaadeen xabsigaabay ku dhex riteen waaya tan iyo intii uu soo shaacbaxay walaalka Fuad Yusuf Cali inuu xabsiga ku dhibaataysan yahay video clip social media la soo dhigay isagoo masquul ku dacdaraysan waxaad samayseen reer Djibouti haddaad tihiin dhaqdhaqaaq oo soo dibad baxdeen cabaar baad qaylqayliseen waad doodeen meelo badan baad ka hadasheen in yar kadib haddana shib baad tirahdeen maxaa idin aamusiyey oo intaasoo dhan uu ninkaasi xabsiga ugu jiraa oo aad sheekadii mar dambe usoo hadal qaadi weydeen waxa weeyaan aniga gaar ahaanteeda waxaan u aamusay aniga walaalkiya waxa weeyaan kolka aad geed lagugu xidho ee hadal lagaa furi waayo la dhagaysan waayo adduunweynihii muslimkii adduunka jiro oo ku dhan yaa la hadlay waxaa la hadlay dad soomaali jiro oo ku dhan yaa la hadlay waxaa la hadlay dowladaha adduunka anigu gaar ahaan waxaan la kulmay on video conference kula kulmay officeka Susan Collins waa senatrice maaragtay Mareykanka waraaqad bay u qortay Mike Pompeo ninkii ministerka dabadda aanayay iyo leyse maaragtay waxay u dirtay safiirkii joogay Mareykanka waa loo sheego waxa laga yidhi war iska soo sii daayna way dhagaysan waayeen odayaal dumar carruur baa ooyey si kastaan nidhi haddii anigu hadishidiidhina kolkaan yidhi magaalo waddankii baan tegayaa waa layga xidhay kolkaa raggaasi waxay nala yihiin deed noo caddaysa taasi war cidna ma maqlayna ninkaa sidaan doonaan kana yeelaynaa annakaana ninkaa iskale bay yidhaahdeen kolka wax kaloo noo hadhay ma jirto annaga oo xoog kaga qaadana maahin oo xabsiga galna maahine oo soo qaadana ninkaa maahine si kaloo noo hadhay ma jirto haddeeto waxaan joognaa xaggii ugu dambeysay ayaan joognaa haddii ay dumarkaygu hadlaan waa la xidhayaa carruurtaydii waa la xidhayaa oo xabsigaa lagu ridayaa waa la gunaadayaa kuwii noo hadlay reer Djibouti waa la laayay shaqooyinkii baa laga eriyey hungurigii baa loo qabtay hungurigaa lagu qabtay kolka waxa weeye waxba nooma harin ma jirto si cumar baa adiga mar ilaa 2 jeer baa diyaarad lagaa reebay adoo u sii socda Djibouti oo ka tagay waddanka Canada waa tii diyaaradda lagaa reebay teebay waxay ahayd Qatar Airways tii ugu horeysay dhigay waxaan rabay inaan Djibouti ka dhaadhaco oon Qatar Airways raaco tigirkii waan goostay boardingkii xitaa waan print garaystay xagga baan ka print garaystay anoo diyaaradda ku socdo ayuu ninkii Qatar Airways madaarka Montreal joogay ii soo garaacay igu yidhi ma maxay ahayd inama raacaysid oona kuma qaadi karna buu igu yidhi kolkaan ku yidhi war maxaa dhacay wuxuu yidhi dowladda Djibouti baa naga dalbatay inaan adiga gaar ahaan ku soo qaadin wuxuu yidhi meesha doontid adduunka waan ku geenaynaa laakiin maxay ahayd inay Djibouti kuma geen karno kolkaa dacwad baan ku furay waxaan ku dayay diyaarad kale Ethiopian Airlines iyadna sidaa bay yeeshay waxay ku yidhahdeen Cumar kuma qaadi karno kolka anigii waxa weeyeen diyaaradihii bay iga xidheen diyaaradii qaadaysa ma jirto anoo lug ku gala maahine madaarka ma dhaadhici karo haddii dadkii u doodayay Fuad Yusuf Cali Djibouti dhexdeeda joogay aad tiri waa la xidhxidhayaa jeel baa la geenayaa oo ay cabsi hayso oo aanay soo bixi karin amaba aanay arrintaasi ka hadli karin adiguna aad walaalkii tahay oo aadan Ottawa dhaafi karin oo aad halkaa ku xidhan tahay ama si kale haddii loo dhigo diyaaradii ay ku xanibeen maxaa taloo idin yaalla maxaad qaban kartaan markaa wallaahi wax kaloo noo yaalla ma jirto anagu imika 6 bilood waan shaqaynaynay hoosaan baan ku shaqaynaynay wax kaloo noo hadhay ma jirto xoog aan dadka maaragtay dadka ku xidhan walaalkay kamid yahay iyo gabase inan kaloo la yidhaahdo ku xidhan xabsiga xoog oon kaga soo saarana maahine si kale noo maadhay annagu waan isdiyaarinaa waa ka shaqaynaa si aan maaragtay cadaalad ugu heli lahayn ummaddaas si kale ma harin cumar xoogga dowlad aad la hortegaysaan jabhadna ma tiidin ciidanna ma tiidin waa siduu noqonaya waxa weeyin ma aragtay Djibouti ma xakumto dowlad ma jirto shaqaysi 4 nin baa xukuma 4 nin oo quraatay iyo dowladda Djibouti xakumta oo siday doonaan ka yeela 4 nin oo iska celina maahine oo xaqayagii aan ka qaadana maahine xaqii ummadana aan ka qaadana xaqa walaalkay iyo wixii lamida walaalkay aan ka qaadana maahine 4 nin
waan iska celin karaynaa dowlad maaha jabuuti in la odhan maaragtay jabuuti dowlad baa jirto madaxweynaha jira waxaasi ma jirto jabuuti oo maxay ahayd inay si dowladda uma shaqayso cadaalad ma jirto cadaaladdii waan ku daynay qaran baan lawyer baan qabsanay lacag badan baan gelinay si ay noo daafacaan waxba uma qaban kareen in lawyer madaxweyne ismaaciil cumar gelle haatan wuxuu sheegaya inuu markii shanaad isu soo taagayo jagada madaxtinimada waxaa kale uu intaasi ku daray in isagu aanu raalli ka hayn ama aanu rabin inuu mar kale soo noqdo laakiin jacayl ay dadkiisa u qabaan awgeed ay ku qasbeen inuu soo sharaxo arrintaa maxaad ka odhan lahayd wallaahi anigu iskuma haysto in aan nin aqoonyaan ahay oo maaragtay meel dheer wax arka laakiin experience-kayga siyaasad ma jirto jabuuti kolka uu ku leeyahay maaragtay anigu waan ku noqonayaa oo dadkii baa iga dalbaday waa beentiisa had iyo jeer been buu sheega waa oday weyn oo sidii Donald Trump ayuunbuu habeen iyo dharaar been sheegaya oo mar hore xitaa uu dhaartay uu yidhi maaragtay kuma noqonayo laakiin siyaasad ahaan siyaasad ma jirto jabuuti haddii aan ku tilmaamo wax baarlamankii ugu horreeyey ee adduunka la sameeyey baarlamanka ingiriisigu ahaa 1000 sanad ka hor baa la sameeyey baarlamankaa kukii la sameeyey ninka boqorka ahaa wuxuu sameeyey house of lord waxa la yidhaahdo kolkaa maanqabeenkii iyo dadkii dhulka lahaa ayuu ka yidhi baarlamankaa kusoo biira kolkaa baarlamankaas shaqadiisi wax quraatay ahayd waxay ahayd in ninka boqorka wuxuu ogol yahay un lasoo saxeexo tii jabuuti waxay joogtaa 1000 sanadood ka hor bay joogtaa meeshii la marayay meeshii la marayay beriga ayay joogtaa oo boqor buu noqday isagu wuxuu ogol yahay unbaa la sameeyaa maanta magaalada jabuuti oo ku dhan haddii ay la tartamto ay tiraahdo madaxweynaan doonaynaa kama badin karayaan siyaasiyiintu kama badin karayaan laakiin siyaasiyiintii runtii bay u sheegi kari lahayn ummaddii ay ka leeyihin warnigan siyaasad kagama qaadi karno walaalkayga yar waxa quraatee lagu haysto waxa weeye runtii buu sheegay kolkii uu baxayay uu yidhi war si kaloo lagaga qaato qori maayne ma jirto kolkaa way iska diideen maaragtay siyaasiyiintu in ay u sheegaan maxay ahayd inay ummadda ay ka yidhahdiin war kama qaadi karna si kale waa inaan la doondoono lagaga qaado intaa haddii ay ummadda u sheegaan ummad meel kale dariiq kale bay doondooni lahayd oo si kaloo haatan xaaladda jabuuti dhinaca siyaasadda waa sidee haatan dhaqaalaha nolosha dhaqaale ahaan wallaahi oo billaahi walaalkayow caliyow kolkii aan eegno xayle salaase soo xasuusan maysid nin boqoroo xakumi jira etoobiya sidii uu ummadda u galayay unbuu u galaa ninkan gaajuu ku dilay ummaddii anugu waan tegey dhowr jeer baan tegey jabuuti dadkii aniga waxay siin jiray ay gargaari jiray ee maanta fiicnaa ayaa ku gaajoonaya walaalahay way gaajoonaya cid kaste oo reer jabuutiya baahi buu qabaa uu gaajaysiiyey siyaasad xisbi kale ma jiri karo xisbiga RBB la yidhaahdo RBB-gaana waa kii ka hadhay LBI beriga calankaan qaadanaya xasan guuleed xisbiga unbaa weligii haysta haddii xisbi kale la sameeyo waa la burburiyaa way laayaan way xidhaan way ka baxsadeen wax alla wixii mucaarad ee siyaasi ahaa ee reer jabuutiya dabadday joogaan kolka dadkan uu samaysta dad baa u shaqeeya oo waa dad jadiid oo waddanka yimido waraaqadaha isagaa siiyey oo been buu ku siiyaa way u shaqeeyaan haddii ay yidhaahdeen hadday ka soo horjeetaa waraaqaduhu ka qaataa waa dad cabsoonaya oo u shaqeynaya wuxuu ka dhigay dee xildhibaanuu ka dhigay wuxuu ka dhigay maaragtay ministero oo governorkiisay ku jiraan way u shaqeeyaan naftooda u shaqaystaan siyaasiyiin maaha ummad waxba uma taraan ta kale qabyaalad buu isticmaalaa jabuuti reer jabuuti haddii runta la sheego qabyaalad ma jirto laakiin xagga dowladda uma jirtaa ninkaasi maalintii ugu horreysay ee la weydiiyey laga yidhi war xageed ka baratay siyaasadda wuxuu yidhi kolkaan yaraa ayaan aftirsin ayaan ka bartay buu yidhi qof alle qofkaan saaxiib lahay iyo qofkaan aqoono aftirsiintiisii ayaan bartay buu yidhi kolkaa wuxuu ku shaqeeyaa aftirsiin buu ku shaqeeyaa waa siyaasad aftirsiin ma jirto siyaasad runa aftirsiin buu ku shaqeeyaa oo kolkaa wuu kusoo tirinayaa dee waxaana ka runa oon anigu u joogay nin ministera ayaan asxaabna oo cadaaladda hayn jiray oo cali cadnaan la yidhaahdo maalintii ugu horreysay is aragnay ninkaas wuxuu igu yidhi cumar oo qabiilkaa tahay ma garanayn dee aniguba ma garanayn wuxuu yidhi aniga ayaa baray buu iga yidhi moogtay qabiilkayga dee maalintii aan ministerka noqday
ayuu madaxweynuhu ii sheegay jilibkaygii ugu hooseeyey aan ka yimiday kolka ninkani waa nin siyaasad ma jirto waxaaba ku shaqeeyaa waayahay waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiiyo maxaad usoo gudbin lahayd fariin shacabka reer jabuuti shacabka reer jabuuti waxaan usoo gudbinayaa horta waad mahadsantihiin siday ay annaka noo gargaareen reer jabuuti waa dad fiican aad u fiican annaka wayna garab joogsadeen aad bay noo gargaareen kolay hiil iyo hooba noqoto wayna gargaareen waxaan ku odhan lahaa ummadda reer jabuuti ha niyad jabina waan ilii soo socdaa ha cabsoonina ininka ayaa nalaga cabsoonayaa ininku ha cabsoonina dowladdan iyo khulafadan raggan haysta ininkay naga cabsoonayaan ininku ha cabsoonina ta kale waan ognahay haddii aad dhaqdhaqaaq samaysiin inaad carruurtiina shaqooyinka laga eriyo ininkiina la xidhayo inaad imika ku dambaysayn inaad guryaha dhexdiisa ininkoo wejiga xidhan ku bannaan baxdeen waxba kama dhigno dhimashadu maalin bay timaadaa qof kastoo maaragtay bilaadanama maaragtay uu dhiman doonaa waxba ka cabsoonina waana garab joognaa waana nii soo soconnaa baan leeyahay ta kale waxaan leeyahay haddii aad maaragtay haddii aad gargaar rabtiin oo waxni garab joogsada haddii aad rabtiin dad aad la hadashiin oo maxaa yeelay gargaar ka weydiistiin noo soo garaaca annaga nala soo hadla nin siyaasiya nin kursi doona nin maaldoona nin nolol jecel jabuuti ma xorriyaddeedu maaragtay ma keenayo ninka quraatee keeni karaya waa nin naftiisa u hori karaya ummadda jecel aanan kala qaadqaadin dhulkana jecel kolka waa nilii soo socdaa wayna jiraan meel kasta adduunka ayay joogaan reer jabuuti oo caynkaaya waa nilii soo socdaa waxba aanan ka cabsoonina waana garab joognaana aad iyo aad baad mahadsan tahay cumar waad mahadsan tahay caliyow waa hagaag daawadayaalkaasina waxa uu ahaa cumar yuusuf cali oo aan khadka skypeka kula xidhiidhay isagoo jooga Ottawa cumar yuusuf cali waxa ay walaal yihiin duuliye Fuaad yuusuf cali oo isagu in muddaaba ku xidhnaa magaalada Jabuuti ee waddanka Jabuuti waxaana ka waraysanay xaaladda guud tan siyaasadeed tan dhaqaale iyo tan bulsho ee Jabuuti iyo weliba meesha uu ku dambeeyey xadhiggii iyo arrintii dacwaddii walaalkii Fuaad yuusuf cali tan iyo kulankeena dambe daawadayaal intaanu dib isugu kulmi doono mar kale waxaa cali xaraar oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo